السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada dhacdo gaaban oo dhaxmartay wasiirka hawlaha guud ee maamulka Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Ali Mareexaan iyo gabadh Soomaaliyeed. Qisada ayaa waxay u dhacday inay gabadh Soomaaliyeed iyo wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland Ali Mareexaan ay wada raacayeen diyaarad fly Dubai. gabadhu waxay ku socotay wadankaasi Ingiriiska sheekadana waxa bartiisa Facebook soo dhigay wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland sheekadaas ayaan rabaa inaan idin guud maro si kooban nuxurkeeda ugu kooban qoraalka uu dheereeyay wasiirku laakiin inaan idin soo koobo ayaan rabaa si aad uga bogataan gabadhu waxay timid 4 iyo barkii subaxnimo ama sida loo yaqaan barqanimo wasiirkuna wuxuu yimid 12 barqanimo ama duhurnimo si ay diyaaradda u raacaan wasiirka iyo gabadhii dhamaantoodba waxay raaceen oo ay fuuleen diyaaradii gabadhii waxay fadhiisatay kursigii ay diyaaradda ka goosatay markii horeba gabadh shaqaalaha diyaaradda kamida oo cadaana ayaa waxay ku tiri kursigan aad fadhido u banee qof kale gabadhii ayaa waxay ku adkaysatay kursigan anigu aan fadhiyo maadaama oo uu wadada xigo aniguna ilmo yar aan wato inaan kaco oo musqusha aado ayaan rabaa si kicitaankaasi iigu dhib yaraado kursigan markii horeba waxaan u goostay inaan hawlahayga ku fududeysto waxayna ku adkaysatay inay kursigeedii si fadhido gabadhii iyo cadaankaayda shaqaalahaydii iyo gabadhii ilmaha yar wadatay hadalkii ayay isku celceliyeen gabadhii cadaanka ayd way gashay waxay u tagtay kabtankii diyaaradda waday iyo qolkii uu ka maamulayay waxayna u sheegtay isaga gabadhii wixii dhaxmaray iyada iyo gabadhii wixii dhaxmaray kabtankii iyo gabadhii shaqaalihii markay wada hadleen waxa go'aan lagu gaaray gabadhan totally ba in laga dejiyo diyaaradda gabadhii diyaaradii intaan laga dejinin kadib waxa sida uu qoraalka ka dhigay soo dhaxgalay wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland ayaa soo kala dhaxgalay wuxuu isku dayay in badan inuu dhaxdhaxaadiyo wayse ka diideen wuxuu u tagay kabtankii diyaaradda waday uu qolkiisa ugu tagay uu soo yarkacay uu fiiriyay wuxuuna u sheegay in uu isku afkarteen in gabadhaas laga dejiyo diyaaradda fly Dubai shaqaalihii Soomaalida ahaa ee ka shaqeynayay diyaaradda iyo wasiirkuna way wada hadleen waxayna ku wada hadleen in gabadhani aynan wax qaladaho weyn galin laakiin uu kabtanku ku adkaysanayo in gabadhaas la dejiyo waxa soo wacay ninkii kabtanka ah wasiirkii duulimaadka ee Soomaaliland ma uusan ka yeelin ugu dambeyntii waxa dhacday waxa soo wacay maayarkii ama ninkii managerkii airportka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa isagana ma uuna ka yeelin ninkii kabtanka ah ugu dambeyntii waxa go'aan lagu gaaray in gabadhii miskiinta ay la dejiyo sidii ayaa gabadhii lagu dejiyay wasiirkii hawlaha guud ee Soomaaliland Ali Xasan Maxamed Ali Mareexaan wuu degay isaguna oo wuxuu go'aan ku gaaray inuu gabadha raaco in badan waxay isku qanciyeen inay gabadha ka reebaan oo wasiirku uu duulimaadkiisa si wato laakiin ma uunan ka yeelin wax yar kadib waxa wasiirka soo wacay regional director-kii fly Dubai wuxuuna u soo wacay inuu ka raali geliyo wuxuuna ku yiri anigu raali gelinkaaga ma baahniye gabadha maskiinta ah la dulmay raali geli wasiirku qoraalkiisa waxa uu qaybihii ugu dambeeyay ku sheegay in ay u fadhiyaan hadda inay raacaan daalo ama jubbo waxa nuqulka ama paragraafka ugu dambeeya uu ku yiri hadii aad arki jirteen shaqaale diyaareed oo jajaban rakaabkana soo dhaweeya una dhoola cadeeya oo caruurta iyo haweenka caawiya imika waxa soo baxay kuwa laad iyo feerkaaga dejinaya diyaaradda qisadaas qiimaha badan waxay dhaxmartay wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland Ali Maxamed Ali Mareexaan iyo gabadh Soomaaliyeed oo ilmo yar wadatay isla markaana ku socotay Ingiriiska una rabtayna inay u raacdo diyaaradan fly Dubai oo ay si xun ula dhaqmeen shaqaalaheedu isaguna intuu u diirnaxay uu ka soo degay diyaaradii oo uu la qaybsaday rafaadkii iyo habsaamintii ay ku rideen shaqaalahaas arxanka daraay gabadha sababta loo dejinayo may sheegin shaqaalaha waxay dhaheen oo kaliya meeshan qof u banay qofka loo banaynayo ma iyadoo ka qiimo badan yahay ma qof oo markaas
hadda waxaan qoraalka wasiirka ka dhex fahmi karaa Cabdiraabiyow waxa uun ay go'aansadeen maadaama ay amarkooda diiday iyagu waxay yidheen ruux waayeela loo bedelayaa kursiga wax saasay sheegeen laakiin iyaduba umul bay ahayd cidi kama waayeelsano qof dumar oo ilmo yar haysta qofna kama jilicsana just waxa uun hadda meesha ka fahmi karaa inay gabadhu wayna amar diiday iyo niman madax u buuxa yihiin intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii iyo dhacdadii gaabnayd ee qiimaha badnayd ee uu soo dhigay bartiisa Facebook wasiirka howlaha guud ee Somaliland Cali Mareexaan tan iyo qiso tan oo kala intaan isugu imaan doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh